سطرت بالشعر المزمجر أسطرا تروي الغليل مجلجلا متأثرا سطرت شعرا خلت أن حروفه شوبا لتحرق باغيا متكبرا miyaad garanaysaa nebiga ilaahay ee rabbi u hiibeeya awooda kala duwan ilaahay uu siiyey wax uusan siin nebiyaashii kale mulkii qof ka dambeeya aan u habboonayn ayuu ilaahay ka baryey nebigaani hal habeen ayuu wuxuu galmooday ama u tegay 100 haween wax ka badan sirta ka dambaysa arrintaas iyo qisadaani la yaab kale ayaynu casharkeennan ku wada wadaagaynaa walaalayaal ilaahay saman kasta wuxuu u soo diray ibni aadanka qof hanuuniya rabbigan wuxuu u soo diray insaanka rusul iyo ambiyo kuwaasoo dadka ku toosiya ama u tilmaama waddada toosan kuna hanuuniya cibaadada ilaahayna uu nebi kastoo la arka ama rasuul wuxuu ku gooni yeelay arrimo khaas uu leeyahay nebiyullaahi ciisa waad garanaysaan dadka faraska qaba ayuu daaweyn jiray ilaahay idinkiis nebiyullaahi ciise ilaahay wuxuu ku soo dejiyey kitaabkii injiil ahaa asagoo yidhiisa oo hooyadiis naaskeeda nuugayana waa hadlay sidoo kale mucjisooyin kala duwan oo ushii maska isku beddeshay ay ka mid tahay ayaa ilaahay wuxuu ku taageeray nebi muuse haddana asagoo ahaa kii ilaahay la hadlay laakiin nebiga aynu ka hadlayno ee qisadeennu ku saabsan tahay waa nebi sulaymaan ilaahay nebigaasi wuxuu ku irsaaqay awood xagga jinsiga ah iyo boqortooyo aan xad lahayn nebiyullaahi sulaymaan waxa weeye mid ka mida nebiyaasha ilaahay ee caanka ah rabbi ayaa u soo diray reer bani israa'iil nebi ayuu ahaa oo maca daalika boqorna u ahaa sulaymaan wuxuu xukumay qoomkii reer bani israa'iil nebi daawuud kadib oo ah aabbihiis meelo badanoo qur-aanka kariimka ka mid a baa ilaahay ku sheegay sulaymaan iyo qisooyinkiisa kala duwan rabbi wuxuu ku tilmaamay sulaymaan iyo daawuud inuu siiyey cilmi nebi sulaymaan wuxuu leeyahay qisooyin kala duwan oo aad u qurux badan mid ka mid a ayaynu halkaani ku wadaagaynaa ilaahay sulaymaan wuxuu siiyey mulki aad u weyn oo uusan qofna kaga dambayn taasna waxay ka dhalatay ducadii ilaahay ka baryey oo uu yidhi ilaahuw isii mulki aan u habboonayn aniga gadaashay qofna jimanka iyo shayaadiintu dabaylaha waxay u adeegi jireen sulaymaan calayhi salaam muuqaalo kala duwan iyo qasri kala noocyaah ayay dhisayaan sidoo kale ilaahay sulaymaan wuxuu awood u siiyey inuu ciqaabo shaydaankii ama jinkii amarkiisa khilaafa dabayshu waxay ku soconaysaa amarkiisa meel walba sidoo kale wuxuu la hadli jiray shimbiraha iyo xayawaanada qaybahooda kala duwan inuu fahmaayaa ilaahay siiyey jalla jalaaluh waxyaalihii ilaahay siiyey sulaymaan waxaa ka mid ah awood xagga jinsiga oo xoog weyn waa nebiga keliya ama waa rasuulka keliya ee guursaday haweenka kuwa ugu badan waxaa la tilmaamay nebi sulaymaan inuu guursaday 1,000 haween laakiin axaadiista rasuulka ilaahay laga wariyey waxay tilmaameen 100 oo hal mar uu guursaday sulaymaan inuu guursaday 1,000 haween hal mar waxaa laga wariyey kutubtii hore reer bani israa'iil ama axaadiista rasuulka ilaahay laga wariyey ansaxday 100 bay tilmaameen laakiin 1,000 waxaa sheegay kutubtii hore ee reer bani israa'iil sulaymaan wuxuu ka mid ahaa nebiyaashii reer bani israa'iila marka hadalkooda ma dafirayno mana rumaysanayno waxaannu leennahay wixii laydiin soo dejiyo diinaha waa rumaysannahay sidaan u rumaysannahay midda nebi moxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam sababtuu sidaa u sameeyey sulaymaanna waxa weeye jacayl uu qabo diinta ilaahay iyo waxyigii lagu soo dejiyey iyo in ilaahay waxyigiisa u hiiliyo si haweenkaasi hal mar ay u dhalaan wiilalkaasoo fii sabiilillaahi ku dagaalama ujeedku ma ahayn hawl jinsi ama qariisad ku beernayd oo dhinaca dareenka laakiin ujeedku waxa weeye si wiilal ay u dhashaan wiilashaasoo asagoo ku taageera diinta ilaahay faafintooda nebi sulaymaan wuxuu ku dhaartay in uu haweenkuu markaasi qabay tiraday doonaanba ha leekaadeene oo habeen qura u galmoodo u tago si ay mid walba u dhasho wiilkaasoo dacwada ilaahay ugu kaalmeeya laakiin arrintiisaasuma u hirgashay maxaasa ka dambeeyey mase dhaleen wuxuu ka filayay haweenka muxuuse ilaahay ku irsaaqay ayay weeye faahfaahinta barnaamijkeennan nebi sulaymaan markuu arrinkaas sameeyo haweenkii habeenkii wada dawaafay hal haweenay ayaa uurka qaaday haweenaydina waxay dhashay wiil kala dhantaalan oo nus ah sababtu waxa weeye markuu arrinkaani gudagelayay insha allah muusa dhihin sida xadiiska ku timid axaadiista rasuulkeenna laga wariyey daahirkooda ama muuqaalkooda guud inay iskhilaafsan yihiin baad moodaysaa marna waxay tilmaameen 100 haween marna 100 wax ka hooseeya sida laysu waafajinayo waa qayb ka mid a barnaamijkeennan qodobkeennani waxa weeye qayb ka mid a taariikhdii hore ee nebiyaasha rabbigeen taariikhdaas oo ah mid caraf badan taariikh la bartana kuwa ugu qiimaha badana waxaynu idin wadaagaynaa waa aqoon ballaaran iyo meel ka waasicsan fikirkaada hadda meeshuu joogo rasuulka ilaahay isagoo xadiis noo sheegaya ayaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi nebi sulaymaan ayaa wuxuu yidhi la atuufanna alleylata calaa 100 imra'a
caawa waxaan u tegayaa 100 haween aw 99 ama 99 kulluhunna ya'tii bifaarisin yujaahidu fii sabiilillaah dhammaantood mid walba waxay dhalaysaa wiil halyeeya oo fii sabiilillaahi ku dagaalama faqaala lahu saaxibuhu qof markaa ag joogay ama la taliyihiisa ha ahaado saaxiibkiisu wuxuu ku yidhi qul insha allah ku dar sulaymaanow falam yaqul nebi sulaymaan arrinkaasi ma dhihin yacni insha allah muusa dhihin marka nabiyullaahi maxamed wuxuu noo sheegay uu yidhi falam yaxmil minhunna ilaa imra'atan waaxida hal haweenayn baa ka uuraysatay jaa'at bishiqin rajulin wiil dhinaciis ama qaybtiis iyo nuskiis ayayna umushay lidaalika nabigeenna yidhi waladii nafsa muxamed biyadihi allaha nafta muxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low qaala inshaa allah hadduu dhihi lahaa inshaa allah lajaahaduu fii sabiilillaah boqolkii wiil wuu heli lahaa ama intuu rabay waa heli lahaa iyagoo fii sabiilillaahi ku dagaalamaya ajmacuuna dhammaantood xadiiskaasi abu hurayra rasuulka ilaahay ka wariyey waana xadiis saxiixa saxiix bukhariga ku jira xadiis kaloo isla bukhariga ku jira abu hurayra wariyey wuxuu tilmaamay inay haweenku ahaayeen 90 xadiiskaa horena wuxuu noo sheegay 100 ama 99 xadiis kale oo isla bukhariga wariyeyna waxaa ku jirta inay haweenku ahaayeen 60 nabigeena markaas wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu sulaymaan markaa dhihi lahaa markuu hadalkaa yidhi insha allah oo insha allahu raacin lahaa dhaartiisu ma jabi lahayn oo arrintiisu waa u hirgeli lahayd markii la xasuusiyey insha allahna wuu hilmaamay oo muuse dhihin xadiista qaarkoodna waxay tilmaameen inay haweenku 70 ahaayeen sida xadiiska saxiixulmuslimka ku jira sidaa darteed waxaa kuu muuqataa in ay axaadiistu lambaro kala duwan tilmaamayaan laakiin waa la iswaafajiyey oo culimmada markay sharaxayaan axaadiistaasi ayay ka hadleen nebi sulaymaan sala allahu calayhi wasalam wuxuu u galmooday oo u tegay hal habeen haween ka badan 90 boqolna ka hooseeya dhammaantoodna ay yihiin intaasi haween xor ah inta kala soo hartay markaasna waa addoomihiisii riwaayadaha kala duwan sida xaafid ibnu xajar kitaabkiisa fatxulbaariga ee sharaxa bukhaariga uu ku tilmaamay waxa weeye in ay qaarkood tilmaameen 60 qaarkoodna ay tilmaameen 70 qaarkoodna ay tilmaameen 90 qaarkoodna ay tilmaameen 99 qaarna boqol ay tilmaameen intaasi see laysu waafajinaya ibn xajar wuxuu yidhi sida lagu kulminayo waxa weeye 60ku waa kuwa xorta ah wixii ka saa'idsanna waa haweenka addoomaha u ahaa ama cagsigaa ka dhigi kartaayo 60ka addoommihii ah inta kale haweenka xorta ahaa ama bii riwaayadda 70ka tilmaantay waa xeel dheerayn oo mubaalaqa wax loo yaqaanaa ku jirta riwaayadda tilmaantay 90ka ama boqolkana waxaa loo jeedaa 190 inta u dhaxaysa marka 99 ama boqol baa layidhi 99 halka xabo waa layskaga daraya kab baa la yidhahdaa walidaalika qofku markuu jiro 38 waxaa layska dhahaa marka qaarkood waa iska 40 jir tirada yartahay soo harta waa layska kabaa ama qofku markuu jiro 42 waxaa layska yidhahdaa waa 40 jir labada waa layska tuuraa yacni inta badan baa tirada la qaataa sidaasna waa la tilmaamay walidaalika nin taabica waxaa laga wariyey inuu tilmaamay oo haddana aqoon u lahaa kutubtii hore sulaymaan inuu lahaa 1000 haween 300 oo ka mid a haweenka xortaa bay ahaayeen 700na waxay ahaayeen haweenkii addoommada u ahaa marka sidaasay axaadiisu isku waafaqaysaa marka xadiiska yidhi 90 bay ahaayeen waxaa la tuuray jabkii xadiiska yidhi 100 bay ahaayeenna kabkiibuu la yimid oo intii dhimanayd buu iska dhammaystiray sidaynu horeyba u tilmaannay ama u miithaalinay siday doonaysaba ha noqoto tiraday doonaanba ha ahaadeen haweenkaas laakiin sidee intaasi haweenah hal habeen ugu tegi karaa ayaa isweydiin mudan su-aashaasi jawaabteedu caqligu diidi mayo waayo sulaymaan waa nebi ilaahaygai u hibeeyey ninka inuu xaaskiisa habeenkii 2 jeer ama 3 jeer u tago intaa inka badanna u hibayn karaa ambiyada ilaahay baa siiyey awood dadka kale ay dheeraayeen xagga jirka ama xagga awoodda caqliyeed ha ahaato ama cilmiyeedba marka laguma qiyaas qaadan karo ragga kale ama nolosha caadiga ahba sidaa darteed xadiiska anas nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xaasaskiisii 9 inuu u tegay hal habeen ama hal saacad gudaheed anas markii la weydiiyey oo la yidhi rasuulka ilaah intaasi ma awooday anas wuxuu yidhi waxaa naloo sheegay in la siiyey nebi moxamed 30 rag awoodday leeyihiin wax ka badan marka awood dhinac kasta leh ayay nebiyaasha ilaahay lahaayeen nimadooda iyo ilaahay xiriirkay la lahaayeen baana u sababa arrinkaasi waayo laabtooda nuur baa ka buuxsamay nuurkoodii baana awood kasta u xoojiyey qofka markuu qalbigiisu degan yahay awoodna leeyahay naftiisuna tahay naf daahira oo nadiifa ilaahay awooddaas wuu hibaynayaa marka awood bay lahaayeen ambiyada ilaahay dhinaca galmada oo aysan ragga kale awoodin waayo ilaahay baa doortay oo dadka kale ka xushay risaaladiisii diintiisina ku aaminay inay halyeeye ahaayeen oo ragannimo weyn ay lahaayeen shaki kuma jiro waana qayb ka mid a mucjisooyinka nebiyaasha ilaahay arrinkaas
nebiyaashu waxay ku mashquulsanaayeen cibaadada rabbigood cilmiga ilaahay iyo u adeega addoommaha rabbi nebiyaasha ilaahay shaki kuma jiro ilaahay ka cabsan jireen xumaantana ay ka fogaayeen markuu qofku ilaahay cibaadadiisa u dhow yahay xumaantana iska ilaalinayo awooddiisa caqliyeed awooddiisa jireed awooddiisa jinsi waa siyaadaysaa ama qofka aan rabbi ka cabsan aragtida ayuu wax kasta ku fasaxayaa nooc kasta oo uu lahaa ee ilaahay u hibeeyana waa daciifaya waxaa kaloo la tilmaamay sulaymaan insha allahu inuu qalbiga ku haystay ninka saaxiibkiisa ku yidhi insha allahu dhehena uu ka wadaya afka oga hadal laakiin intuusa hadalkii ka faaruq naqin waa hilmaamay sida riwaayadaynu soo marnay ay tilmaantay marka sulaymaan markuu xaasaskiisii wada maray habeenkii mid keliya ka uurqaaday tiina waxay dhashay wiil kala dhiman oo nus ah sidaa darteed baa rabbi qur-aanka ku ishaaray arrinkaas oo suuratu saad ilaahay wuxuu ku yidhi walaqad fatannaa sulaymaana wa alqaynaa calaa kursiyihi jasadan humma anaab waannu imtixaannay sulaymaan kursigiisina waxaynu ku soo tuurnay jir yacni ilmaha nuskaa weye markii loo keenay humma anaab wuu toobad keenay qaala rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdii ilaahow ii dembi dhaaf iina hibee boqortooyo qof iga dambeeya aysa u suubanayn innaka anta alwahaab allaha bixintiisu badan tahay oo u xibeeyaa tahay walidaalika ilaahay ka sii warramay waxyaalihii loo sahlay oo dabaysa ee shayaadiinta waxaala kala duwan ay ka mid yihiin qisadani waxaa ka dareemaysaan walaalayaal muhiimadda ay leedahay insha allah markaad shay qabanaysid weligaa insha allah dheh meel baad aadayaa insha allah waxaasan qabanayaa insha allah haddii arrinkii fulo iyo hadduusa fulin adigu dembi kuma lihid eedna kuma lihid laakiin idanka ilaahay wax kasta hoosgeli ilaahay idankiis dheh ilaahay hadduu ogolaado hadduu alla ii fasaxo insha allah berri meeshaasaan aadayaa insha allah weligaa ha hilmaami waayo shayga haddaad heshid ama meesha haddaad aadid iyo haddii kale adiga isku kaa mid bay noqonaysaayo ma ka shallaynaysid oo ma ka qoomamaynaysid oo waxaad dahaysaa ilaahay baa ii qadaray ama allaan idmi walidaalika ilaahay noogu sheegayaa arrintaasi suuratulkahfi oo rabbi wuxuu yidhi walaa taquulanna lishayin innii faacilun daalika hadaa waxna ha dhihin berri baan qabanayaa ilaa insha allah adoo insha allah ku darin laakiin haddaad hilmaantid wadkur rabbaka idaa nasiita soo xasuuso oo waxaad tidhi beri waxaasan qabanaya ama waxaasaan yeelayaa saacad kadib waxaad xasuusatay insha allah inaad ka tagtay insha allah markaa ka dabageeye waqul casaa an yahdiyanii rabbii liaqraba min hada rashada ilaahay xaggiisa waxaan ka filayaa waxa anigu aan raadinayaa ama aan qorshaystay wax ka wanaagsan inuu ii qorsheeyo oo igu hanuuniyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin inaad casharkaani ka faa'iideen waa filaynaa rabbigan waxaan weydiisanaynaa dembi walba inuu noo dhaafo hami kasta iyo walwal kastoo nahaystana ilaahay uu naga dulqaado jazaakum allahu khayra